war marraba barnaamijka la sheergareeyo wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ay maqashaan kusoo dhawaada barnaamijka xogta dahsoon. waxaa qodobadayda ugu waaweyn maantay geerida allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. allaha u naxariista guddoomiyaha. haddaba waxaa isweydiin mudan, guddoomiyuhu macaawuu dhintay mise saakuu dhintay mise asbuuc ka hor ayuu meyd ahaa? waa su-aasha u baahan. horena waan idinkugu sheegay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa dad indha xiran weeye, siyaasadana aan waxba ka aqoonin. ma idin iri haddii injineer cumar cabdiraxmaan cismaan yariisow loo qaado dalka qatar oo caafimaad loogu qaado, in aan nabad lagu soo celinayn oo ah meeshii la rabay in lagu dilo ma idin iri mise idinma oran? su-aasha aan raba inaan idin weydiiyo waa su-aashaas. ma idin idhi yariisow haddii qadar la geeyo ma soo noqonahayo oo in la dilaa la rabaa? ma idin idhi yariisow haddii uu noolaado sir badan buu fashilinahayaa, in uusan noolaan baa la doorbiday? ma idin idhi yariisow in xilka laga qaado way fududahay oo digreeto madaxweynaha looga qaadi karaa? ma idin idhi waxaa ka muhiimsan sirta uu qarinahayo balse in la dilay filla Soomaaliya ka shaqaysa? ma idin idhi? goor dambay baraarugtaa balaq iiga dambeeya. hadda marka iiga dambeeya waxa aan idin iraahdo, iiga dambeeya. haddii kale goor dambe iyo calaacala waryaa habeenkii qaraxa uu ka dhacay gobolka banaadir ma idin qaraxan dowladda ka dambaysa? ma idin iri injineer yariisow waxaa loo dilhayaa in kursiga laga qaado baa loo dilhayaa? ma idin iri yariisow kursiga in laga qaadaa loo dilhayaa, waxa weeye digreeto madaxweynaha looga qaadi karaa, balse sirta uu xambaarsan yahay yariisow baa ka muhiimsan? ma idin iri sidaa awgeed baa la rabaa in la qaarajiyo? ma idin iri balaq ha nacam, nabad iyo nolol futa balaq nabad iyo nolol shargareeya barnaamijka. goor dambaad indhaha kala taagtaan barnaamijka shargareeya. wallaahi bilaahi tallaahi habeenka qaraxa ou gadaal lagu laabo lifekayga, xoogga allaha ku qabtee lifekayga gadaal lagu laabo, fiiri lifekayga. maxaan idhi habeenkii qaraxa u dhacay injineer yariisow habeenkii la yidhi waa dhaawac? maxaan idhi ta soo fadhiistay? ma idhi dowladdaa ka dambaysa, meel 30 jeer qofka la baarahayo qaraxa ka dhacay cid yeelaysa ma jirto? ma idin idhi yariisow xilka in laga qaadaa la rabaa, guddoomiyaha gobolka in laga qaadaa la rabaa, kursigaasna uu kumeel gaar sii ahaado ilaa farmaajo uu xilka ka dhammaysanahayo, kursigaas kumeel gaar baa laga rabaa? ma idin idhi farmaajo dalkan wuxuu ka rabaa inuu ku qabsado awood military oo ah wuxuu sanjeer marshallow u geliyey inuusan kana saarin inuu riyadii adeerkiis ku riyoonayo? ma idin idhi waxba igama qaadataan? dadka dalkan caqliga u saaxiibka ah oo dalkan kusoo koro kusoo barbaaray oo miyir iyo maskax intaba dalkan u haya hal haba kama akhrisataan. allaha u naxariista injineer yariisow asbuuc ka hor baan u tacsiyeeyey, diyaaradda qatar markay soo caga dhigataan u tacsiyeeyey, ma qadiijo markii laga soo saaray waxa weeye isbitaalkan u tacsiyeeyey, faad yaasiin markuu tagay qatar baan u tacsiyeeyey, markii lagu shiray in waxa weeye injineer yariisow xilka laga qaadan u tacsiyeeyey. xabad ma garataan? dhoohanayaal baa tihiin lagu tastay dhiiggiinna in lagu shaqaysto maalin walba. haddaba xogta aan idiin haya maxay tahay? injineer yariisow yaa ka dambeeyey dilkiisa? ma noolaa fahad yaasiin markuu tagayo qatar mise meyd buu ahaa? meeqa daqiiqo ka dambeeyey soo laabashada fahad yaasiin nolosha injineer yariisow? meeqa daqiiqa u dhaxaysay? maxaa loo soo saaray maama qadiijo oo looga soo saaray isbitaalka? maxay ugu maahmaahday nin dhintay bay leeyihiin waa dhintay? maxay aragtay maama qadiijo indhaheeda? maxay ku aragtay wasiiradda isboortiga? yaa ku xiga injineer yariisow?
farmaajo yaa waxa weeye baasaboorka farmaajo maxaa looga dhigay waxaasoo dhan baa idin hayna ma taqaanaan siyaasadda waa iskaga wareereysaan allah yaa raxma aa liska leey ilaahay u naxariisto aa liska leey haddaba injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaan idiin soo bilaabayaa taariikhda marka la galay baan idiin soo bilaabahayaa siyaasaddu marka aan idin leeyahay wax naga dhagaysta annaga waxa weeye u leh aqoon annaga u leh naga dhagaysta markaa idin leenahay waa markaas wey yariisow madaxweyne cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu u soo bandhigay in xilka uu ka qaadi doono xilka in laga qaadayaa loo soo bandhigay injineer yariisow xilka waa iska diiday warkayga aad u dhagaysta ma dhiibayuu yidhi xilka aniga aan u soo jilba murxay ma dhiibayuu yidhi injineer yariisow haye farmaajo iyo waa loo shiray ninkaan ifaad yaasiin baa u shiray waxaa la yidhi injineer yariisow xilkaaga hayso cid kugu qabsanaysa male waxaa la yidhi xilka haddii xoog looga qaado injineer yariisow dadkii aan laynay oo ay koow ka tahay beriire oo ay laba ka tahay waxa weeye banaanbixi baydhabo oo ay saddex ka tahay guriga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay afar ka tahay guriga cabdi qaydiid oo ay shan ka tahay dhiibistii qalbi dhagax oo ay lix ka tahay wax kasta oo dalkan ka dhaca waxa weeye xog ogaal buu ka yahay injineer yariisow waana gudbinayaa ummadda soomaaliyeedna tooriyay nooga saaraysaa madaxtooyada ee saayelna waa la isweydiiyey markaasaa la yidhi u kaadi injineer yariisow xilkaaga waa haysanaysaa weli inta aan joognaa nala joogaysaa waa nala dhammaysanaysaa baa layidhi cid kaa qaadi karta oo ilaahay unta haba yaraatee ma jirtaan yariisow hayuu yidhi waxaa loo maleegay qaraxaanna filla soomaaliya laga wareegay qaramada midoobana waa ogaatay madaxweyne farmaajona waxay ka mid tahay waxyaabaha loogala laabtay baasaboorka waxa weeye maraykanka waxyaabaha loogala laabtay ka mid tahay waa isweydiine goormaa lagala laabtay b b c da goormay sheegtay in waxa weye farmaajo sharciga lagala laabtay 2 asbuuc kahor baa lagala laabtay maanta naloo soo gelinahayaa waxa weeye saxaafadda wadaninimada xaggay taallaa ma jidho waxaa dhacday farmaajo baasaboorka in lagala laabtay sababa la xiriira qaraxii gobolka ka dhacay oo uu ku lug yeeshay gobolka banaadir farmaajo waxaa ka dhacday qarax ay dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka ogtahay guddoomiyeyaal baa dhintay kuwo kalaa dhaawacmay injineerka loo dan lahaaye injineerka markii la ogaado injineerku inuu nool yahay fadlan sheergare barnaamijka markii la ogaaday injineerku inuu nool yahay baa haddana habeennimo la fadhiista shir jaraa'id baa la qabta sidee uga taqallusnaa baa la yidhi injineer yariisow qaabkee uga taqallusnaa injineer yariisow baa la yidhi oo waxaa la yidhi injineer yariisow hadduu dhaawacaya dhaawaciisu inuu dhaawac fudud yahay waa in dalka qatar oo waxa weeye mar waliba ka shaqaysa dhibaatada ummadda soomaaliyeed la geeyo halkaasna lagu dilo si aysan ummadda soomaaliyeed u fahmin ayadoo loo socdo kursiga guddoomiyaha gobolka banaadir oo ay leedahay beesha abgaal cusmaan oo la rabo in ku meelgaar haddeertaan midba sir kale idiin sii sheegaya kursiga oo hadda kusimaha ka yahay waxa weeye ninka murusade uu kusimaha ka yahay guddoomiye inaan loo magacaabayn baan idiin hayaa sirtaas oo uu kusima ku jirahayo ilaa maqaamka reer muqdisho ay ka quusan doonaan waxaa la geeyey dalka qatar baa la geeyey waxaa goobtaas ka daba tagtay wasiiradda isboortiga ka daba tagtay waxaa la yidhi adigu halkaa dadka noogu maaweeli waxaad tidhahdaa guddoomiyihii waa nool yahay guddoomiyihii waa fiican yahay guddoomiyihii waa caafimaad qabaa reerkiisa iyo markay yimaadaan niyadda u dhis dadka soomaaliyeed halkaas waxa weeye sacabka noo baraanbur baa la yidhi qadiijo meeshay fadhiisata way u baraanburtay waa fiican yahay tiri waa roon yahay tiri ayadu mishinka maba ogayne mishinku waxay ogaatay markuu fahad yaasiin ka soo degay garoonka qatar oo uu isbitaalka soo galay oo uu la kulmay yariisow kursigiisa waxa weeye miiskiisa ugu tegay oo uu dhaqaatiirta la hadlay baa waagu u bariyey maama qadiijaas inta soo fariisatay mahmaada waxay tiri nin waa hore dhintay leeyihiin waa nool yahay waa dhintay warkaas cidda dadka hadda loo macnaynaya kelmadaasaan rabaa ma idinkaa la idiin macneeyaa warkaas mise waxa weeye waa dad ogaalaatiin ma xoolaa tihiin maama qadiijo 4 beri ka hor bay tiri nin dhintay bay leeyihiin waa dhintay maxay tahay waa injineer yariisow 4 maalmood meyd ahaa oo oksijiinka laga saaray fahad yaasiin baa soo galay wuxuu la hadlay dhakhtarkii wuxuu yidhi ma nool yahay buu yidhi suu yidhi haa waa nool yahay وكاد عفوا يا أحير عفوا ويري من نولي هاي ونولي هاي بينا ونولي ما إنتي نريسو ونول ها صدق وين لو سار أبو يري
oxygen waa in laga saaraa oxygen-ka laga saara injineer Yarisow baf injineer Yarisow oxygen-ka haddii laga saaray maxaa haray waa raftay naftiiba halkaa timid ilaa qof bini aadana oo oxygen ku nool waxa weeye haddii laga saaro neefta waa mission dhakhtarkii xataa wuxuu yiri dowladda Ingiriiska ayaa nagu haysata injineer Yarisow oo rabta in loo qaado halkaas injineer Yarisow hay markaas Fahad Yaasin wuxuu yiri soo loo qaadaya ninkaan anagu meesha caafimaad u keen ninkaan anagu meesha inuu ku caafimaad qabo u keen ninkaan anagu meesha u keen in waxa weeye uu ku noqdo nin waxa weeye hadii Ilaahay ku idmaayo lugihiisa ku socda ninkaan waxa dhakhtarkii waa aamusay kunturaad baa lagula galay dowladda Qatar injineer Yarisow in la dilo wallahi billahi tallaahi baan ku yiri saddex magaco ilaahan mar hayaa waa hurudaan reer Muqdisho waa hurudaane injineer Yarisow waa la dilay gacanta farmaajoona ku baxay waxaana lagala xisaabtamayo wax laga weydiinaya Fahad Yaasin iyo farmaajo wax laga weydiinaya dalkaani wuxuu ku jira xaalad adag buu ku jira kii siyaasiga waa la dilaya kii wax gartana waa la dilaya hadaba yaa ku xiga injineer Yarisow anu sir waa si baasa ku badan testo aan si dhiiba ciday rabta maanaha taabato ciday rabtana ka dul baxdo testan dhiiba injineer Yarisow yaa ku xiga cidaa ku xigta injineer Yarisow waxa ku xiga nin la yiraahdo wasiirka amniga Islow waa ku xiga dadka daacadda u ahwi oo la raba in saas khilaafo loogu qabto waa ku xiga waxa qoostay islaantii maama Khadiija ahayd waa qoosatay waagi baa u bariyay tala waxa weeye dhulka kaga fariisatay maama Khadiijo markay aragtay injineer Yarisow in la dilay oo dawladdu dishay oo Fahad Yaasin uu ka dambeeyay oo waxa weeye injineer Yarisow oo la qaaratiyo markay ogaatay ayadu maba ogeyn barnaamijkaana waa dumarna waa iska beer jilicsan tahay markay ogaatay horta waxay joojisay alalaaska yaa arkay maama Khadiijo xataa boos soo dhigtay yaa arkay cidee aragtay maama Khadiijo boos soo dhigtay cidee aragtay waaga ku bariyay waxay tiri adaa ku xiga injineer Yarisow waa la dilay waxaan u sheegayaa beesha abgaal uu ka dhashay anigu dagaal ma iclaaminayo dhiig muslim inay daadatana raalli kama ahi maxamed cabdullaahi farmaajo warqad inta loo geeyo filla Soomaaliya iskaga baxalado si degdegna maxkamadda loo saaro asaga iyo ninka la yiraahdo Fahad Yaasin waa labada nin oo dalkan ka dagi waayay waa labada nin oo dalkan Qatar waxa weeye mushaaraadka ay kaga qaataan waa labada nin oo dalka u hadar waba soo dhaaraansaday sharciga magala laabta maxamed cabdullaahi farmaajo markaan go'aan waxa u ah inuu wuxuu arkana dilo wuxuu arkana dhaco wuxuu arkan waxa weeye awood military dalka waxa weeye ismaquuniyo dawladda shisheeye uu noo dhiibo Qatar uu naga iibsho iyo Sacuudiga oo yiraahdo dalkan wax ka qabta illa meel ku laabta male baasaboorka laga qaatay baasaboorkii farmaajo waa laga noqdo villa Soomaaliya yeysan isku dayin ummadda Soomaaliyeed inay been ka dhaadhiciso yaa la isku wadaninimo saddex sano haysta muxuu iskaga dhigi waayay habeenkii la doortay farmaajo muxuu u dhihi waayay muwaadin baan ahay xilkii madaxtinimada dalka la ii dhiibay waan ka baxay farahan ka qaaday baasaboorkiini waa kaasa maxaa loo dhihi waayay muxuu u dhihi waayay awood baa looga qaatay waxa la yiri wareegtay soo saareen dawladda Mareykanka waxay yiraahdeen muwaadiniinta anaga noo dhalatay oo waxa weeye muwaadiniinteena oo dalkeena u dhalatay muwaadiniinta anaga dalkeena u dhalatay raalli kama noqonayno mana waxa weeye ayagoo sharcigeena haysta in ay waxa weeye ay hayaan kursi ay waxa weeye xil qabtaan ma ka noqonayna raalli taas looga qaatay maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa marka injineer Yarisow horta waxaan uga tacsiyeenayaa dhammaan beesha uu ka dhashay injineer Yarisow reerkiisa xaaskiisa oo caaw waxa weeye ay murugo la taalo waxa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ciilka injineer Yarisow caawa ilka uu la jiifo oo waxa weeye ilka uu la jiifana wallahi billahi tallaahi baan ku iri mas'uuliyadeeda waxa qaadaysa filla Soomaaliya maxay ilaa hadda dawladda federaalka Soomaaliya waxa daliil u ah warkayga dhageysta maanta warka aan idin dhaho waa idin recording gareysan yahay waxaan idin weydiinayaa habeenkii Islowna lagu daro maama Khadiijana lagu daro waxa weeye inta nacamlayso nabad iyo nolol inta tiraahdo habeenkii xabad loo qorsagaaray waa soo gala live
caawo kale ii shidan tahay aniga lifeka caawo kale bay ii shidan tahay aniga maxaa yeelay warka aan idin iraahdo ma qaadataan waxba iskama weydiisaan waxa weeye abwaankii baa yidhi ma tirahdaan iguma tixgelisaan been ma yaqaana ma tirahdaan markaasaad meel ilaa uga dhaqaaqdaan caawo kale ii shidan tahay halkaanay ka shidan tahay caawo halkaan bartaan aad iga fiirsanaysaan bay ka shidan tahay habeenkii anugu aan lifeka soo galay oo qaraxa gobolka banaadir ka dhacay oo injineer Risow diyaaradda loo dalbay waxaan idin iri injineer Risow ma noolaanayo khadara loo wadaa injineer Risow wadkiisiya loo wadaa malaka mawdkii dili lahaabaa garabka saartay oo diyaarad u soo baakimay injineer Risow ma idin iri mise idin ma oran ma idin iri mise idin ma oran su'aashaas harba inaad iga jawaabtaan waa ku jira muuqaalkayge bal ku laabo maxaan ka bilaaba qaraxa injineer Risow ha ii dambeeyo ummad Soomaaliyeed baa dhiman jirta caawana injineer Risow waa dhintay horta aan isweydiinay dadka Soomaaliyeed yaa layn jiray injineer Risowna yaa qarxiyay gudoomiyaasha degmooyinkana yaa dilay oo laayay oo siyaasadaas watay habeenkii lifekayga aan soo fariistay ma idin iri haddii qadar la geeyo waan ogahay baa qadar in loo qaadayo haddii qadar la geeyo injineer Risow ma caafimaad buu ku soo laabanayaa mise geeridiisana loo keenay geeridiisana loo keenaya ma idin dha caawo ii shidanta caawo kale ii shidanta caawo kale laaba ku laabo profilekayga ku laabo soo fiiri muuqaalkayga bararaq caawo kale waxa weeye meelaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun lagu soo qoraa caawo kale la baroortaa adeer waxaan waa wax la ogaa weeye siyaasad tagtay weeye siyaasad iskugu soo biyo shubatay weeye ninkii nuucnuucsana inta in laga fogeeyo waa siyaasad noqotay in Soomaaliya aysan degin waa siyaasad inay laba shabaab wada shaqeeyaan shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan kulmiyo Soomaali maxay tiri kulmiyo ii sheeg kulmiyo maxay tiri shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan kulmiyo ma tiri mise ma dhig ma lagu yiri kulmiyo shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan ma adeer dalkan waxa haysta Fahad Yaasiin asaga lagala xisaabtamaya sirdoonkii waxa haysta nin kala haysta oo waxa weeye dalka qasahaya waa lagala xisaabtamaya farmaajo iyo khayro si degdeg weyn isku casilaan waa in kursiga laga qaadaa ayadoon barya ahayn waa in kursiga odayaasha dhaqanka midnimada beelaha hawiye haddii aysan daba dhilif ahayn oo aysan ka naxayn geerida Risow oo aysan ka naxayn geerida nin kastoo haldoor si degdeg farmaajo inta loogu tago kursiga laga wareejiyo manna matalo madaxweyne nooma ahan waana khayaanay waana gatay waana bahdilay haldoorkeeni buu dilay haldoorkeeni buu musqulaha u dhacay haldoorkeeni buu 20 qofood ka dilay ninkan waa nin aarsi u socda wariyaa allahood alla yahay ninkan nin oqdadaysan wey waa nin aarsi u socda waa nin dalkan aan rabin inuu dhismo waa nin adeerkii u aarahaye abwaan xaraga markaan abwaan xaragana markii la siibo oo saanta loo qabta la siibo يا سامر أبو حرقة لسيبه مركز نبيش شيء ضب نورته إنا لله وإنا إليه راجعون وحبا إنا عندك مرة على نيها بينك اللي يسيبه أدى ندي شيء جاية دل كان وادل هالدور كله دلها أدى رتي دي شيء هبينك أبو حرقة ومقدسي ما هذا أو لسيبه أو اللي يرى هذا أبو حرقة واتجي عد كلا يمدرين نبضي أنا لا يدي شيء maxaa ayaga hal doorkii dilahaya abwaankii bay dilahayaan waxa weeye nabadoonkii bay dilahayaan gudoomiyihii bay dilahayaan askarigii bay dilahayaan taliyihii bay dilahayaan mucaaradkii bay dilahayaan ninka soo aqal u saaxiibay dilahayaan ninka soo waxa weeye dareen ay ku waxa weeye ay ku malaynayay dilahayaan ninka soo waxa cid ay deynayaan male habeenkii taabo xaraga muqdisho yimaada saa loo kaaway ama la dilo waxa la yiraahdaa kooxaha wadaysan oo haybtooda la garanay haddaan sheegaya haybtooda waa la garanaya farmaajo ay dilay iyo Fahad Yaasiin hadda idin sheega hadhowti yaa la dhihi yaa lagu wareeri kooxaha wadaysan oo haybtooda aan la garanayn baa dishay wallahi billahi tallahi inaan muqdisho huray saddex magaco ilaahay baan ku iri ama sanadkan ku xigaan imaade ama ku sii xigaan imaade kooxaha hubaysan oo haybtooda la garanayn baa dishaa dhowti anigu cidna waxa weeye ilaahay hortiisna kaga yeeli maayo cidna lagu qancin maayo anaa nool baa sheegay oo ka dardaarmay oo hadda idin sheegaya waa farmaajo Fahad Yaasiin dadka ayaga dila dadka ayaga qaarajiya mishinka waxa weeye fil Soomaaliya weeye haddaba odayaasha waxaan rabaa marka kursiga injineer Risow laga dilinayay barnaamijka dulucda aan hoos u galay wali idinka dhaadhicin wali idinka dhaadhicin dulucda rabaan aan ka dhaadhiciyo kursiga injineer Risow damaca uga jira farmaajo muxuu u dhintay injineer Risow yaa dilay muxuu u dhintay sababta u dhintay maxay tahay kursigaas u dhintay haddaba kursiga danta ay ka leeyihiin villa Soomaaliya maxay tahay
kursiga danta ay ka leeyihiin villa Soomaaliya maxay tahay oo engineer Yariso uu dhintay ana idin sheegay kursigaas engineer Yariso Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u waasiyo asaga iyo waxa way Abdul Qaadir Cusuble markii meediyaha hadallada la iskula tuurtuurayay oo Abdul Qaadir Cusuble uu maqaamka ka hadlayay oo waxa way engineer Yariso asagana tuu muuqaal soo duubay oo uu dhahay hadii Ilaahay ku idmahayo waxa weeye amni darada qayb ka taa u dhahay war la isla ogaabo ana ka dhaadhicinahay dirta waxa ma ogidin war wallahi billahi tallahi WhatsApp-kaygu daqiiqad bay xogta ugu soo dhacdaa laakiin haddaan soo dhigo oo idin la wadaago baynan waxa weeye meel ka soo qaadeen ilaa halka la idin ku dhufto dad dhukan baa tiine waa la isla ogaa way isla ogaayeen engineer Yariso Abdul Qaadir Cusuble waxa weeye farmaajin loo been guuray in waxa weeye engineer Yariso oo uu iska dhigo in nabad iyo nolol uu la jiro balse waxa weeye maqaamka Muqdisho uu raali ka yahay in la sameeyo 1 Agoosto maalin madoobay noota engineer Yariso oo 4 maalmood dhintay ka hor baa la yiri waa dhintay umada Soomaaliya lagu maran habaabiyo markay villa Soomaaliya ogaatay in engineer Yariso ay ku badaan uu cag wareejis yahay oo Abdul Qaadir Cusuble la jiro maqaamkii Muqdisho la raadinayo markuu ogaaday villa Soomaaliya farmaajo markuu ogaaday baa waxa la yiri haye engineer Yariso xilka aan ka qaadno hadda engineer Yariso faadiyaasi wuxuu yiri xilka laga qaado maana xire farmaajo maana xire ana ma xire ila dambilaha weyn ee umada Soomaaliyeed oo aniga ma xire suuyi saanku xira ninka xilka aan ka qaadno saan qaadna ninka xilka waa la soo qabtay hirig farmaajo waxa way faadiyaasi hirig wax kala qabtaan la waa markii dambe way isla fahmeen waxay isku fahmeen in ninka hadii xilka laga qaado uu sir badan hayo nabad sugidii oo dhan in Fahad Yaasiin uu afduubtay si inaysan shaqayn oo dawladda Soomaaliya aysan hore u bixin oo canshuurta dalka la iska daldasho ka nasiib ka nasaar la yiraahdo dadkii aan la rabin la dilo Fahad Yaasiin hawsha ka dambeeya farmaajo Fahad Yaasiin waxa weeye daaha ku jira Fahad Yaasiin farmaajo waa saaxiibo waa saaxiibo lillahi waxa lagu yeeshay dhiig umada Soomaaliya haye ana ma xiraysaa yiri farmaajo mana xiree saan ku xiraa wallahi ana xiraysaa billahi tallah wallahi ana xiraysaa hadda saan ku xiraa engineer Yariso xilka laga qaadan la yiri hoogay Fahad Yaasiin farmaajo waxa la yiri ninkan hadan xilka ka qaadna ana xiree wallahi ana xiree haddaan ninka xilka qaadin maxaa yeelay sirtii oo dhan war yaa qalbi dhagax yaa dhiibay anaga dhiibnay xalaata umad Soomaaliyeed deelayna muwaadin baa Itoobiya loo dhiibay ma joogayna meesha waana dhagaxyayna ugu yaraana Fahad Yaasiin waa ka aqli badan yahay farmaajo haye bariir dadka lagu laaya marka waxa weeye anagu qaacidan ku sheegno umad Soomaaliyeed baa wali habar gidiri ahay qabiilka anagu waxa weeye wadankan nala degan oo waxa weeye aan ka hoyan weyno ka harsan weyno dadkoodii weey dadka anagu wal qaacida ku sheegno oo la laayay sawir baa ta farmaajo haye maxaa kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur 10 nin laga dilay oo ayra oo madax bashaq laga siiyay oo kabihiina la duugay oo waxa weeye ilaa hadeertan nolol iyo geeri meelna lagu haynin marka waxa soo sheegaya engineer Yariso maana xiraysaa buu yiri suuya maxaa kale ma waadan war u hayn buu yiri sargaalkii ugu dambeeyay hadda isceejinay waa la ceejiyay yaa ceejiyay Soomaaliya waa ogta laakiin hadii engineer Yariso uu sii cadeeyo maana xiraysaa buu yiri farmaajo ninka hadeertan waxa weeye waa isdaldalay ma naag jacayl galayba markii qof weyn la leeyahay waa isdaldalay naag jacayl isku dishay ba jacayl naag isku dishay markii leeyahay nin ba isdaldalay oo isla laadiyay waxaas waa ru'ayad weeye adiga farmaajo markii dambe waxa laga dhaadhiciyay fil Fahad Yaasiin ka dhaadhiciyay ana xiraysaa biir wallahi billahi tallahi farmaajo ana ii socotaa biir ana ii socotaa waxa weeye anoo shaqaala arabta inaad iga taqalustiino ku faasana haddaad engineer Yariso xilka qaad aalmiina engineer Yariso aan u dirno Hoosland offline aan ka dhigno lama heli karo fadlan numberka garaacday waa dansan yahay fadlan numberka garaacday lama heli karo aan ka dhigno lama heli karadii la abaabulay waa la isla meel dhigay qaraxa waa la gudbiyay kaamiradihi waxa la damiyay week ka hor waa wax dawladdu ay ka warhaysay kaamiradi waxa ka soo dhax muuqday xildhibaan gacan saar la leh xafiiska madaxweyne farmaajo gacan saar la leh xafiiska ra'iisul wasaare Khayre gacan saar la leh xafiiska Fahad Yaasiin gacan saar la leh xafiiska nabad iyo nolol baa kaamiradi ka soo dhax muuqday asagoo galahaya xarunta gobolka Banaadir shirka hoolka asagoo ka soo baxaya bay kaamiradu qabatay kaamiradi markii loo bandhigay madaxweyne farmaajo loo bandhigay oo ay nabad sugidii u bandhigtay markii Saadax Joon u bandhigay Fahad Yaasiin iyo farmaajo iyo Saadax Joon waxa lagu heshiiyay maadaama la arkay xildhibaankan sida weyn ay Soomaali u taqaano waa u ceeb qarinaya anu ma sheegay ninkaas magaciisa iyaguna waa taqaanaa maadaama ninkaas lagu arkay meesha inuu ka soo baxay kadibna uu qaraxii dhacay
in arrintaani ay nabad iyo nolol futada gashanayso toojibali kiiskii injineer Yariisow waa xirmay hawiyow ama ogaada ama iska jiifta ama iska seexda qaasatan beesha abgaal oo xamar degan oo hurda weynayaal la yiraahdo hurda weynayaal waa kiiskaas waa la xiray injineer Yariisow nabad iyo nolol dishay Fahad Yaasiin iyo farmaajo la weydiiha 4 maalmood ka hor buu meyd ahaa oksijiinkii baa laga saaray maama Khadiija banaanka loo soo tuuray adeer xawlo waa sida farmaajo iyo khayre iyo Fahad Yaasiin dalka laga qabto ama waxa weeye maqaam Soomaaliya maqaam Muqdisho ka hadli lahaydeena ama maqaam kala ka hadli lahaydeena ama waxa weeye gudoomiye xilka raas waxa weeye qof saaran lahaydeena ama dalka idinko agacad ka bixi lahaydeena dalkan waxa ka socda aarsi abwaan xarago oo nin habar gidina oo sacada oo aan xataa kulaf ahayn waxa weeye injineer Yariisow arintiisiiba hadaan ka hadlay target baana ama ogow ama ha ogaan haddaan idin sheegaa abwaan xarago anigu ma ama abgaala kama hadlino kiiski waxa weeye injineer Yariisow ma ka hadlino targetana caawo dhan baroorta noo wada meel kasta waxaan noogu soo qortaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa wareey waa la